بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أمد الصوماليات ميل بايجوغان فرين تان waxaan rabaa ra'iisul wasaaraha ayaan u dirayaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxaan arkay maalmahan shalay iyo maanta iyo markii ninkii eedeysanaha ahaa ee Fahad Yaasiin Djibouti laga celiyay dad badan oo siyaasiyiin isku sheegaya ama xilal hore soo qabtay oo oranaya qofka muwaadinka looma diidi karo dalka inuu soo galo xaq buu u leeyahay hadduu yimaado dalka lagu maxkamadeeyo arrimo noocaas oo nifaaqa waday ayaan arkayay marka waxaan leeyahay dadkaas mudan ra'iisul wasaare warkooda ha dhageysanin waa dad raba in dalkaani dhibaatadan uu ku sii jiro waa dad raba inuu farmaajo iyo Fahad weli ay wax sii qasaan waxa weeyaan farmaajo iyo Fahad dalkan waxay ku yihiin dhibaatay ku yihiin culaab bay ku yihiin qaswadayaal ayay ku yihiin welina xoogaa awood bay leeyihiin inta Farxaan Qaroole uu taliye yahay inta Xijaar uu taliye yahay inta ninka la yiraahdo Yaasiin Farey la leeyahay meeluhu baawur wadaayo ordahaya inta farmaajo uu amar bixinayo oo amarkiisa dad sidii doontaba ha qaadatay uu gurigiisa dhaafayo waxa weeyaan Fahad inuu dalka soo galo oo uu dalka yimaado waa halis weyn halis ayay ku tahay amniga qaranka halis ayay ku tahay doorashooyinka halis ayay ku tahay muwaadiniinta Soomaaliyeed halis ayay ku tahay sharciga iyo kala dambeynta iyo dawladnimada halis ayay ku tahay maxaa la yiraahdaa kiiska ikraan tahliil maxkamadda yaala halis ayay ku tahay marka waxa weeyaan waxay doorasho hal aado doorashada ragga u ordaaya war doorasho maxay keentaa doorasho dhibaato badan inay keento ayaa laga yaabaa doorashada haddii uu maxamed cabdullaahi farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay weli awood leeyihiin ka warrama hadduu beri soo laabto maxamed cabdullaahi farmaajo ka warrama hadduu beri khayra madax noqdo oo nin oo maxaa la yiraahdaa nabadii nolol uu madax noqdo ka warrama haddii kuwa kale isqarinaya guuleed iyo nabadii nolosha ay madax noqdaan makiiska ikraan baa cadaalad loo helaya makiiska qalbi dhagax baa cadaalad loo helaya makiiskii wiilashii loo qaaday Eritrea ayaa cadaalad loo helaya makiiskii qarxii maxaa la yiraahdaa 14 Oktoobar baa cadaalad loo helaya makiiska dilkii injineer Yariis walaal u naxariista ayaa cadaalad loo helaya maya way qarinayaan sababta nabadii nolol waa isku mid waa un kala waaweyn maahane taageerayaasha nabadii nolol iyo kuwa hoos ku qarinaya waa isku fikir waa isku barnaamij waa in dalkan ay ayagu maaragtay sidii rabaan ka yeelaan dastuur iyo dawladnimo iyo kala dambeyn iyo cadaaladna ay meesha ka saaraan marka waxaan maxamed xuseen rooble fariin u diri lahaa maxamed xuseen rooblow doorashada waxaa ka muhiimsan amniga dalka in gacanta lagu qabto oo dad muwaadiniina oo ummadda Soomaaliyeed aan dhibaateynayn oo sharciga iyo dastuurka u hoggaansamaya ay madax noqdaan oo taliyaal ciidan ay noqdaan oo ay qarankan iyo dadkan ay maxaa la yiraahdaa u adeegaan sidee doorasho loo qabanayaa haddii weli uu active yahay maxaa cabdullaahi farmaajo oo uu shaqeynayo oo dhaqaale haysto oo uu amar bixinayo oo uu dad kala xodxodanayo sidee doorasho loo qabanayaa haddii Fahad Yaasiin weli uu la taliye amni yahay oo uu madaxtooyada joogo oo uu maxaa la yiraahdaa telefoon dirahayo oo uu dawladdu ku dhex jiro sidee loo qabanayaa dadku weli weysasan yihiin dadku inay wax rumaystaan oo ay firfircooni helaan waqti dheer ayay ku qaadanaysaa in cabsidii lagu beeray 4 sano iyo bar lagu abuurayay oo dadka la dilahayay oo loo maartay laaluushahayay oo la qarinahayay oo loo hanjabahayay weli waqti dheer ayay qaadanaysaa soo noqoshada Fahad Yaasiin uu dalka ku soo noqonayo waa dhibaato weyn weey dawladana xukuumadana waxyaalaha ugu horeeyay ee rabo inay fuliso waxa weeyaan waa national interest wax la yiraahdo jira national security haddii ay timaado arrin amni qaran hadday timaado qofkii amnigaas qaranka dhibaato ku ah dalka waa loo diidaya bal sirdoonada adduunka caalamiga
sidee bay u shaqeeyaan imise qof ayaa si ay bannaan ku disha ama haddii ilaahay ku royaa ii sheeg xabsiye ay ku xireen soomaaliya xalana xabsi ku yaallaa lagu hayo dad looga baqaya amniga maraykanka guatanama aa ogtihiin ciraaq bay ku lahaayeen afghanistan bay ku lahaayeen yeman bay ku leeyihiin dalal badan ayay ku leeyihiin xabsiyo ay dadka ku qariyaan si aysan dhibaato ugu abuurin dalkooda gudahooda u geynin marka waxa weeyaan national security interest waa waxa ugu horeeya ee dowladda raba inay ilaaliso amniga qaranka amniga muwaadiniinta amniga hantida qaranka soomaaliyeed dhulkiisa dal iyo dibadba waa in laga ilaaliyaa ninka la yidhaha fahad yaasiinna dalka yuu soo gelin ilaa inta laga qaadayo xilka taliyayaasha nimanka isaga la shaqayn jiray ee xijaar ku jiro ee farxan qaroole ku jiro ee hebelkaa yaasiin ku jiro wax alla wixii cayayaan ahaa ee la shaqaynahayey maxaa la yidhaahdaa fahad yaasiin oo uu ku jiro guddoomiyaha gobolka amniga gobolka banaadir oo uu cumar finish ku jiro waxaasoo dhan ilaa ama inactive laga dhigo oo shaqo maaragtay maxaa la yidhahdaa la kontaroolo ama xilka laga qaado fahad yuu imaanin fahad dhibaato ma leh dadka kale ee jooga maxkamaddu way soconaysaa qofka isagoo maqan waa la xukumi karaa isagoo maqanna waa la baari karaa maxkamaddu way shaqaynaysaa kiisku ikraan wuu soconhayaa laakiin doorashadan lagu hayo doorashada waxaa ka muhiimsan horta doorashadu amni ma helaysaa haddii la yidhahdo doorashada la qabto ayadoo sidaan ay tahay amni ma helaysaa doorashada laftigeeda dhibaato badan ka imaan kartaa oo dimuqraadiyaddan iyo doorashada lagu sheegay ayadaa dhibaataa laakiin doorasho waxaa la rabaa hufan oo xaqa oo aan cidna laga baqaynin oo aan cidna loo hanjabaynin oo aan cidna la laaluushaynin in la qabto ayaa la rabaa taas ayaa dad macno leh ay ka soo baxayaan taas ayaa qaranka macno u samaynaysa taas ayaa dadka soomaaliyeed muwaadiniintii xaqa ahaa ee rasmiga ahaa ay ku soo baxayaan laakiin inta dhaqaale iyo hanjabaad iyo anaa meesha ku geystay loola maarata maxaa la yidhahdaa loola fadhiyo doorasho xaqa ma imaanayso marka mudane ra-iisul wasaare adoo doorashada wada waxaan kugula talin lahaa in aad dadkan ay ku shaqaysan jireen ee ay dhibaatada ku abuuri jireen ee ahaa maxaa la yidhahdaa mekanismka ahaa ee ayaga la isticmaalahayay ee ayaga amarka fulinahayay inaad ilaa aad meesha ka xoraysid oo aad taliyayaasha ka qaadid oo aad haddii ilaahay kuu roon yahay xilka ka wada dhigtid oo ay shaqo la-aan aad ka wada dhigtid dadkaas ilaa ay inactive noqdaan oo aad xilka ka wada tirisid doorashada xalaala ma noqonayso doorashada lama qaban karo inta mahdi guuleed uu doorashada somalilan uu dhabarka uga taagan yahay inta qorqor uu doorashada galmudug dhabarka uga taagan yahay inta maxaa la yidhahdaa ninka la yidhahdo lafta garan uu dhabarka uga taagan yahay waxa weeyaan kulligood waxay ka amar qaataan fahad iyo farmaajo marka fahad waa in dalka laga qabtaa farmaajona laga dhigaa arrest laga dhigaa house arrest camal oo kale laga dhigaa waa inuu ahaadaa nin ku siisima sii joogaa marka waxaan leeyahay kuwa odhanahaya waa muwaadin lagama celin karo dalka muwaadinka hadduu halis ku yahay amniga qaranka waa laga celin karaa waa loo diidi karaa bannaankaa lagu xiri karaa bannaankaa laga soo qaban karaa waana sharci adduunka ku dhisan dowlad walbana sidaas ayay ku shaqaysaa national security interest ayaa la yidhahdaa waa qaswada fahad yaa ii diidi kara fahad inuu qaswado yahay yaa ii diidi kara maxamed cabdullaahi farmaajo inuu doorashada qas ku wado inuu amniga dalka qas ku wado miyaa la diidan yahay mas-uuliyadda ra-iisul wasaarahana waxaa ka mid a amniga dalka amniga doorashada iyo doorashadaba inuu wado sidaas awgeed doorasho aan amni lahayn waxba ma noqonayso marka waxaan kugula talinahayaa mudane ra-iisul wasaare inaadan dhegaysan nimanka iska hadlahaya ee dhahaya waa in fahad looma diidi karo waa muwaadin haddii muwaadinku hadduu dembi galo maxaa loo xiraa maxaa maxkamadda loo geeyay maxaa xabsida loo sameeyey maxaa booliska loo sameeyey maxaa maxkamadaha iyo justiska loo sameeyey haddii muwaadin walba wuxuu rabo uu samayn karo war doorasho soo midii farmaajo noo keenta maaha doorasho soo midii trump keenta maaha doorasho soo midii keenta maahan maxaa la yidhahdaa baraag yuhuud maxaa kii la dhihi jiray maxaa la isheg kii hadda laga qaaday israa'iil laga qaaday yuhuud baraag
ya soo midii keenta maa soo midii keenta maa ninkii falastiin baabi'iyey soo midda hadda aniga waddanka aan joogo s d xisbiga la yidhahda sfaria democraty oo cunsuriyiinta xisbiga labaad soo midda ka dhigta maa sanadka dambana inay waddanka qabsadaan looga baqahay soo ma war doorashada lagu ordahay waxaa ka fiican dalka iyo dadka marka hore in la dejiyo amni la sameeyo doorasho xaqa oo xalaala ay markaas dhacdo marka arrintaas farmaajo iyo fahad ilaa dalka laga qabto iyo taliyaashii ay amarka u dhiibi jireen oo dadka dili jiray oo farxaan qaroole ku jiro oo xijaar ku jiro oo maxaa la yidhahdaa kaniif ku jiro waxaasoo dhan ilaa xilka laga tiriyo oo laga qabto yaan dalkan lagu degdegin doorashadiisa doorashadu ha socoto laakiin muhiimadda koowaad waa kiiska igraan waa amniga dalka waa in taliyaashii ka amar qaadan jira cayayaanka o dhan waa in laga xaqaa arrintaas ayaa muhiima igana gaarsiiya maxamed xuseen rooble iyo dadka ay khusayso waa anigoo cali xiiso salaamayo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu